Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada maanta iyo muuqaalkeena. Daawadayaal, waad mahadsantihiin intii nagu taxan kii nagu cusubna fadlan subscribe saaro, like-tana dheh, kuna soo biir kanaalkeena kana mid noqo kuwan. Waxaan inii haynaa barnaamij ku saabsan mucjisooyinka Ilaahay uu ka muujinayo meelo kala duwan oo caalamka ah. Fadlan ka qayb qaado sii socoshada kanaalkan. Qayb muhiim aad ka tahay, kaalin weyn baad ka ciyaaraysaa. Adiga oo mahadsan, subscribe dheh, like-tana saar. Aad baad mahadsantihiin. Weligaa waxaad aragtay waxbaad la yaabtaa. Maanta waxaan inii haynaa gabar wax ku qoranaysa afkeeda oo gacmihii oo kale u noqday, sidoo kale wax ku cunaysa, sidoo kale markaasi waxyaalo kala duwan. Qoraalkii gabadhan waa gabar aad moodayeen u yadhahay, laakiin da'deedu aad u weyn tahay. 37 sano ayay jirtaa, sida markaasi barnaamijka lagu sheegay. Inta ay leeg tahayna weligeed waxay isticmaalaysay markaa afkeeda iyadoo wax ku qoraysa, sida hadda meesha kaaga muuqataba. Waxaan filayaa inaad ka bogatay wax shay kasta oo ay isticmaalayso ayada kan ku isticmaashaa. Maqaadirta Ilaahay hadda meel ayuu ka muujiyaa si ay ugu cibro qaataan adoomadiisu uguna toobad keenaan. Kuwa markaas aan iimaanka lahayn ay u rumeeyaan markaas nolosha kama soo quusan, laakiin waxa isku dayday inay bini'aadanka markaas ay tusto inay wax qabsan karto. waa inay ka dhabaysay oo way tustay inay wax qabsan karto, sida adigoo hadda aad aragtid annaguna aan aragno. weligeed iskool lama geynin, laakiin abtigeed iyo waxaas ka caawiyey. hooyadeedu maasha Allah iyaduna si fiican ugu dadaashay oo markaas garab qabatay si ay markaasi ay u akhrisato buugaagta kala duwan, iyadoo akhrinaysa markaasi afkeedana qalinka ku qabsanaysa, dabeedna ku qoraysa. sidoo kale waxaa aragtay inay wacanayso dad oo markaasi inay wacato dadka oo markaasi afkeeda ku wacanayso qofkii. waxaa aad iyo aad u cajiib ah in bini'aadamku uusan macna isdhiibin, horeyna uu sii socdo intii karankiisa. waxaan aragnaa maalin kasta waxyaalo aad iyo aad kaaga cajiib gelinaya shakhsiyaadka markaasi aad aragtay iyo waxa warbaahintu ay soo qaadanayso oo ay ku soo bandhigaysaa markaasi caalamka oo dhan ee la yaabka badan, mucjisooyinka ah ee inta badan xaqaa'iqda ay yihiin oo sugan yihiin. tanina waa mid ka mid ah kuwa aad iyo aad dadka u soo jiitay. aan jeclaysanay maanta inaan idinla wadaagno sida idinkuna markaasi aad uga bogataan. waxay sheegtay hooyadeed inay markaasi gabadha kaliya ay ka haysata ay tahay adduunka, ayadana markaasi ay la joogto. waxay sheegtay sidoo kale markaasi in gabadhaani ay afkeeda markaasi waxyaalaha ay ku tasho mararka qaarkood loo iibgeeyo magaalada. markaasi waxyaalahaas ma garanayno waxyaalaha waxay ku falaan, annaga ma isticmaalno, laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay shay markaasi ayagu ay u baahan yihiin. waxay tiri, waa gabadhaydii iigu horreysay ee aan dhalo. markii aan dhalay waxa ay ahayd mid aad iyo aad markaasi u dhibaataysan oo markaasi dadkuna ay la yaabanaayeen muuqaalka gabadhan ay la soo baxday. laakiin aniga kama niyad jabin oo waxaan u istaagay inaan horey u sii wado oo markaasi aan gabadhayda korsado. ilaa iyo haddana wax ka dambeeya iyadan maan dhalin, ayadan un baana la joogaa. aad baan ugu faraxsanahay ayada la joogitaankeeda iyo inaan markaas ayada caawiyo. waxaana dareemayaa inay tahay ayada jir aniga iga mid ah. inta aan noolahayna inaan sidaan ula joogo oo xanaaneeyo ayaan jecelahay. gabasha ayada u soo bixisa in la qaado sida carruurtii oo kale
sida hadda inii muuqataba. Marka waxaan dad badan oo hadda Soomaali ah oo iyagu markaa naafa ah dowladaha ayay ku caawinayaan dowladdu waxba nooma qabato. Qof isku dayay inuu asagu wax bilowdaana ma jiro. Inkastoo ay fiican tahay in dadka naafada ah laga warqabo oo laga warhayo oo loo kaalmeeyo diintanaduna ay nafarayso. Laakiin maanta tani waa cajaa'ib aad iyo aad u weyn oo markaasi muujinaysa markaasi dadka macnaha inuu yahay marnaba dadku inuusan markaasi isdhiibin oo markaasi never give up inuusan weligiis isdhiibin hore u socdo markaasi.